intaynaan hawsha si official ugu dhawaaqina waxay soo martay process fara badan oo qodxahaanu ka soo gurnay waxa kamid ahaa in fikirka la isla qaato waxa kamid ahaa in wuxuun la helo dhaqaalaha loogu tala gelayo waxa kamid ahaa in goobta la helo waxa soo dhani mudday soo socdeen waxaan aad ugu hambaleeynaa cid kasta oo hawshaasi runtii nagala soo qayb gashay waxa halkan jooga wasiirkii howlaha guud oo aad ogtihiin inuu mas'uul ka yahay dhulka qaranku uu leeyahay wuxuu aad iyo aad noogu fudeydiyay goobta aynu maanta dhagax dhignay oo goob ku haboon in laga dhigo maktabad oo magaalada bartankeedii inay waxa weeye ay inoo suura gasho waxa ku xiga wasaaradda horumarinta caafimaadka oo goobta lahayd goobta wasaaradda caafimaadka lahayd way noo hibeeyeen si looga faa'iideeyo maktabada waxa ku xigay wasaaradda waxbarashada oo goobtii kale ee laga dhigi lahaa xarunta caafimaadka ee gobolka iyaguna inagu wareejiyay intaasiba xagga wasaaradaha goobtan khuseeyay saddexda wasaaradood baa runtii nagala shaqeeyay waxa ku xigay mar labaad in wasaaradda waxbarashadu ay waxa weeye markaanu bandhignay inaynu deegaan ahaan 100,000 gacanta ku hayno inta kalena ballan qaadano inay iyaguna runtii ay 200,000 oo dollar inoo ballan qaadaan waxa nasiib wanaag inuu halkan joogo wasiir ku-xigeenkii Cabdiqaadir oo waqtiga ahaa wasiir ku-xigeenka waxbarashada oo inagoo gacanta hawsha ku hayno xagga waxbarashadana uu nagala shaqeeyay markii dambana in miisaaniyadda 200 lagu daro aad iyo aad ugu dadaalay aad baan runtii wasiirada iyo dhammaantood baynu ku hambaleynaa soddonkii bishii koobaad baan gudidii rasmiga ahayd hawshani maadaama ay tahay hawl mutadawaca soddonkii bishii koobaad baan runtii ku dhawaaqnay gudideedii rasmiga ahayd waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda oo talooyin iyo waxa soo howloon ka sheekaynayba iyo magacaabista gudida iyo wax fara badan si dhow noogala shaqeynay arrimahan oo kale waa arrimaha u baahan in gacmaha la isu qabsado hadday dadweyne tahay iyo hadday madaxba tahayba intaa horeba waxay ku soo suura gashay in waxa weeye gacmo wada jirba wax ku qabtaan si wada jira looga soo wada dhinac istaagay gudidaas baanu runtii tala kadib ku dhawaaqay soddonkii bishii koobaad gudidu 22 xubnood bay isugu jirtaa oo u badan dhalinyarta aqoon-yahanka ah oo ka kala yimid meelo kala duwan xildhibaanada kamida ururada bulshada kamida sportska kamida aqoon-yahanka kala kamida mas'uuliyadda koobaad ee inuu barnaamijkan hirgalana gudidaasi oo aan 100% ku kalsoonahay inay mashruuca hirgelin doonaan ayaa yeelan doonta mas'uuliyadda labaadna waxa weeye dawlad dhexe iyo dawladdii waxa weeye heer gobol iyo heer degmaba inaan kula shaqeyno marka saddexaadna inay dadweynuhu kula shaqeeyaan mashruucaas waa mashruuca aynu wada leenahay waa maktabad quruxdaad aragteen yeelan doonta oo aynu ugu tala gelino inaynu ka faa'iideystaan dadkeenu oo lagu dhiso aqoonta iyo garaadka dadka waxaan ugu mahad celinayaa xubnaha golaha wasiirada iyagoo howlo fara badan u yaalo waqtigoodii ina siiyay inoona samray gudidana waan ugu duceeynaa insha Allah taala anagoo hubnay inay ka soo bixi doonaan ganacsatada iyo qurba jooga iyo dhammaan dadweynaha reer Gabileyna waxaan aad iyo aad ugu adkaynaynaa inaanay mashruuca dhayalsan ee intii kaga soo hagaagta hadday buugta tahay hadday dhaqaalaha tahay ay u diyaar garoobaan anagu halkan 100,000 oo dollar ee miisaaniyadda ku tala galay waxaanu doonaynaa si shaqadu hore ugu bilaabanto suldaanka hadlayay suldaan Xuseen baa kelmadda hadlayo wuxuu yiri waa la dhagax dhigaa laakiin way raagtaa axmedna waa kiimika inoo sheegay maktabada nationalku inay 8 sanadood socdeen furitaankeedu u qaatay khibradaha waxaan doonaynaa inaan ka faa'iideysano marka waxaan ugu tala galay in mashruucu hore u bilaamo horena looga faa'iideysto anagoo taa niyadda ku hayna waxaanu doonaynaa inaanu 100,000 oo dollar aanu halkan imika gudida ku wareejino si mashruuca loogu bilaabo dadkana niyad dhigta ugu noqoto